اترك أثرا في دنياك. أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الخلدون الحضرمي الإشبيلي ومد كميدا قراغا دغناياشا ugu saameynta badan taariikhda aadanaha buuga isku raaceen bariga iyo galbeedkuba saameyntiisa waa ay yartahay ama waxaanu oran karnaa ma jirto jaamacad aan lagu daraasayn ama aan wax kamida lagaga qaadan buugiisa caanka ah al-muqaddima waxa uu kamid yahay 10ka buug ee uu ku ballan qaaday inuu akhriyayo nin ay ku xiran yihiin balaayiin qof adeegiisa Mark Zuckerberg asaasaha Facebook taariikhyahan mucaasira isna waxa uu ku tilmaamayaa buugaas inuu yahay waxyaabaha aqliga bini'aadanka isla gaaray isagoo su'aal isweydiinaya waxa uu leeyahay talow ma laga heli karaa bariga qof u dhigma Ibn Khaldun Soomaaliya waxa aan moodaa buugaas inuu si toos ah inoo la hadlayo waxa uu ninkani ka soo jeedaa qoys Yamaniina sida ka muuqata al-Hadrami waxa uu dhashay gugii 732 hijriga oo ku aadan 1332 milaadiga asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa qoys Yamaniya oo uu haajiray dhankaas iyo Andalus waxa uu xifdiyay Quraanka Kariimka sidoo kale waxa uu bartay 7 qaab ee loo akhriyo Quraanka waxa uu bartay cilmiga tafsiirka xadiiska sidoo kale waxa uu aqoon durugsan iyagana u lahaa oo si wacan uga bogtay naxwaha fiqiga inta badan waxa uu kala kulmay aqoonta abihi caadadii iyo dhaqankii hore culimadu waxa ay ahaayeen inay ahaayeen aqoon iyo maktabad toos oo guuraysa taasna waxa inoo cadeynaysa Ibn Khaldun waxa uu sidoo kale si ka bogasho leh u bartay cilmiga fiisigiska caafimaadka mandiqa iyo cilmiga bulshada waxa uu cilmiga ka qaatay culimo tiro badan imaamkii cilmiga luqadda iyo xadiiska loo daba fadhiisan jiray ee la oran jiray Maxamed ibn Abd al-Muhaymin al-Hadrami sidoo kale waxa raad weyn ku yeeshay sheekhi la oran jiray Maxamed ibn Abdullah al-Bari oo uu ka qaatay mandiqa xisaabta falsafada iyo cilmiga deegaanka gugii 749 hijriga waxa dunida ka dilaacay cudur aad iyo aad u baasan oo safmar noqday cudurkaas oo la oran jiray daacuunkii madooba kaas oo ku dhuftay reer Yurub waxa la sheegaa 3 qof ee reer Yurub in uu ka dilay cudurkaasi 2 qof taa macnaheedu waxa ay noqonaysaa marka reer Yurub loo qaybiyo 3 meelood in uu galaaftay 2 meelood oo kamid ah reer Yurub xanuunkaasi waxa uu soo gudbay Tunis xilligaasna waxa Tunis joogay Ibn Khaldun waxa uu xanuunkaasi dilay aabihii iyo hooyadii iyo barayaashiisii intii ugu badnayd daadiisu markii ay maraysay 19 jir 18 jir 20 jir waxa uu ka dhaxmooday siyaasadda waxaana uu la taliyaal u noqday ninkii la oran jiray Ibn Marrin markii uu ku sugnaa muddo dhowr bilooda ayaa waxa lagu diray boqorkii waxaana loo sheegay in uu doonayo Ibn Khaldun inuu xilka kala wareego boqorka waa uu ka tagay magaaladii waxa uu gudbay dhankaas iyo Faas halkaas oo uu kala kulmay dhibaatooyin barfara badan iyo hagardaamooyin waxaana uu ku xirnaa muddo 2 sano ah markii uu jeelka ka baxay waxa uu eertay xaggaas iyo qarnaada oo waagaas ka talinayay ninkii la oran jiray Suldaan Ibn Yusuf al-Ahmar boqorkaas waxa uu isaga kula kulmay soo dhaweyn aad iyo aad u heer sareysa waxaana uu dajiyay qoraalka qasriyadiisa kuwa ugu mudnaa waxa markiiba xaasidnimo iyo ka daba shaqayn ku bilaabay raggii uga soo horeeyay boqorka kuwaas oo Ibn Khaldun laga hormariyay cilmigiisa iyo aqoontiisa waxa raggaas kamid ah ninkii la oran jiray Lisaanuddin Ibn al-Khatib Ibn Khaldun kuma uu hakan bartaas balse waa uu dhaafay waxaana uu kicintimay dhankaas iyo Jazaa'ir halkaas oo uu ku guursaday waxa uu degay magaalo la oran jiray Bijaya halkaas uu xukumayay nin la oran jiray Ibn al-Abbas al-Ahmadi waxa uu ku nagaaday muddo 4 sano ah kadibna waxa uu bilaabay inuu qoro kitaabkiisii caanka ah ee la oran jiray al-Muqaddima ama ku caan baxay diiwaan al-mubtada'i wal khabar fi ayaam al-arab wal barbar waa uu ka gudbay Jazaa'ir waxaana uu tagay Tunis waxaana uu bilaabay inuu halka ka bixiyo duruus masaajidkii ugu weynaa ee la oran jiray Jaamicu Saytuuniya balse waxa ka bilaabay bartaas xaasidnimo iyo ka daba shaqayn waxaana uu u safray dhankaas iyo Masar waxaana uu tagay jaamacadii weyneed ee la oran jiray Azhar waxa uu Ibn Khaldun ku soo beegmaya Masar waqti ay Baghdad ku dhamaatay gacmihii tartaarka dadkii wixii noolaa ee aqoon-yahan cabaaqiro taariikhyahan culimo
aftahano iyo wax kastaba ay ku cintimeen una qeexeen dhankaas iyo Masar deegaanka magaalada Qaahira. Ibn Khaldun waxa uu aad iyo aad ula dhacay Qaahira waxaana uu wax badan ka qoray isagoo ku noolaa magaaladaas muddo ku siman 24 sano. waxa uu bilaabay in uu dib boorka uga jafo buugiisii caanka ahaa ee uu horaantii ku soo bilaabay dhankaas iyo Jazaa'ir. buugiisii la caan baxay ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. marka aynu si kala u eegno Ibn Khaldun waxa uu soo baxay waqti ay muslimiintu dhibaatooyin fara badan ku jireen, waqti ay muslimiinta dhiigooda aad iyo aad loo daadiyay, dhan kasta iyo dhinac kastaba kaga socdaan dhibaatooyin iyo dagaalo aad iyo aad u culus. Ibn Khaldun waxa uu noqday cabqariyad iyo taariikh ay dunyada xilligaas nooli ay la cajabeen, waqti ay bateen dadka la dhacsan iyo dadka xaasidiintaaba ay ku bateen. gugii 768 hijriga waxa loo dhiibay garsoorka, markaasuu mar kaliya noqday aqoon-yahan, garsooye, bare, taariikhyahan, faylasuuf, abwaan. markaasay bateen dadka la dhacsan iyo kuwa ka soo horjeeda. waxa uu ahaa nin caqli badan oo shucuubta aad iyo aad u darsa sida ay u fakaraan iyo qaab nololeedkooda. waxa uu soo maray Andalus, waqooyiga Afrika, Aasiya ilaa Yurub. waxa uu la noolaaday shucuub iyo aqwaan kala duwan. waxa uu sidoo kale seexday qusuurta boqorada iyo teedhooyinka saxarada. waxa uu sidoo kale la noolaaday mii iyo magaalaba. waxa uu Ibn Khaldun marka si loo eego noloshiisu waxa ay ahayd nolol aad iyo aad u cidhiidhiya. Ibn Khaldun waxa ka dhigay inuu caan noqdo oo cid walba xaasido, cid badan la dhacdo. laba qodob ayaynu ku soo koobi karnaa. kow, waxa uu ahaa nin go'aan adag oo aan marnaba ka tanaasulin go'aanka uu noloshiisa ku socdo iyo halka uu doonayo inuu hiigsado. laba, waxa uu ahaa nin hansara leh, waxaana ku tusaysaa waxyaabaha uu ka tegay iyo turaadka dhaxalka uu ummadda uga tegay. Ibn Khaldun markii uu ku sugnaa muddo dheer Qaahira waxa uu doonay inuu baaqo ehelkiisa oo ku sugnaa Tunis. nasiib darro markii ay jidka sii socdeen oo ay ku soo socdeen magaalada Qaahira ayaa waxa la degtay doon. Ibn Khaldun waxa uu ka xumaaday dhacdadaas, waxaana uu ka murugooday si daran, waxaana uu ka tegay qaadinimadii iyo xilkii, waxaana uu sidoo kale iska daayay wax dhigistii muddo 3 sano kadibna waxa uu ku geeriyooday Qaahira.